قربة هدي غيرهاي كويسو دلكان قيمة دو هيسو قلوب تادو إلى هيسو قربة هدي غيرهاي كويسو قربة هدي غيرهاي كويسو دلكان قيمة دو هيسو قلوبتا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. داوديال كسو دوادا برنامج كله او هدهنا دوغا براتين تي في بلشو او مغعيسو اها قربة جوغي خوغالسو دلكاغا oo noqonaya xalqadii labaad ee hadii biidmaayo soo gala maalinta axadda habeenka isniintu soo galayso 10:15 daqiiqo. ujeedada barnaamijka oo sidaan horeba u sheegnay ah in qurba jooga wadankeena soo guriya noqonaya oo wadankeena abaal weyn u sameeyay muddo badanna soo hayay dhinacyo badanna ka taageeray in ay helaan war sugan oo hadii biidmaayo hadday meherada bilaabayaan iyo hadday iskuulla bilaabayaan iyo haddii ay ganacsi gelayaan iyo hadday beera qodanayaan hadday baabuur la imanayaan haddii guryo dhisanayaan inay helaan macluumaadka ku habboon ee rasmiga ah ee dad professional ah oo nasteexiina maaragtay ay ka taliyaan oo ina sida dhacda marmarka qaarkood afka dhulka ku dhufanin intay warar khaldan ay qaataan. maanta waxa aanu ka hadlaynaa xaaladda baabuurta wadankeena la keeno ama joogta. qurba jooguna ka maarmi maayo baabuur inuu keensado ama halkaba ka iibsado ama cagafba soo qaato beer samaysanayo ama wiishba is yiraahdo soo qaado ku shaqayso. marka waa inuu ogaadaa wixii isbeer baara kooda la helayo farsamadooda la helayo nooca ay u baahan yihiin iyo wadooyinka ay ku soconayaan. waxaana maanta halkan aan ku marti qaaday oo khabiir arrinkaas aan looga horreynin ah Ismaaciil Cali Obsiye oo badankiinu aa garanaysaan oo geerishkii ugu horreeyey Hargeysa laga furay 1936 aw Cali sida badankiina aad ogtihiin manager ka ah isla markaana isaguna engineer uu yahay. Fuad na lagu naanisto isagoo aanu ugu yeedhayno haliyey maadaama ay ku soo baxeen barnaamijyadii kale ee haliyeynimada lagu qaadanayay. Fuad wuxuu guddoomiye ka yahay urur cusub oo geerislayaashu wadanka Somaliland ay isku kaashadeen oo la yiraahdo bahweynta geerislayaasha. Fuad ku soo dhawow barnaamijkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مهنا قيا بهذا التي في ذا بالشدة والبشوكته تدوينها سومال لا دولة تجن ونكسر له هاي وحي تالك على حبك عقرر مايو إن الجالسية والبشوكته نصان قرية. إسماعيل بالواحد نوجا ورنتا بابور تور جود نجسي بابور تودن كإمكا لكانه أما قربتشوق كان صدق نوعودو وحي هاي بل فكر نقصي. أنت هلا سؤال شاو قلين عندنا يروح الرعة إن دتك قربتشوق يلعب هاي نبى تري بريجوران تعبير تري تبدأ كسر نقطة وهاي هاي حولنا يفسنا يوم دتك نرمي قاعد يورست هاي ربك قرب ميدين دابيلو صدح أفرح اللي أيو سنة تروق بسببين صدح قوية صدح دايرة
saddex xagaaga iyo saddex jiilaala haye ninkii markuu xoolihii iibsado miyigii ku dhaqday ah ayuu jiilaalkii dheeraaday haye markaasuu hor waqtigii aad ii sheegtay la roobku da-ayey ah way dhaaftee maxaa dhacay kontarkii isyeelyaalkeenu ku jiraa bay idhaah siyaryaalka isyeelyaalka haye markii hore taa igumaydaan darin buu sheekada igumaydaan darin ilaa kusii talageli lahay waa run marka iminka dadkeeda qurbajoogii waxa wanaagsan horta inay sahanka marka hore ay sugaan waxay soo qaadanayaan iyo halkay imanayaan iyo waxay furanayaan iyo meesha geediga ku furaya geediga ku furaya allah u naxariista odaygii xaji jeero la odhan jiray ayaa nin qurbaha ka soo degay uu yimid carabsiyo haye markaasuu guri 60 shilinna la kireystay haye maqaaxi 60 shilinna uu kireystay haye markuu labadii kireysto xaji jeero u yimid wuxuu yidhi maxaad ku kireysto 60 iyo 60 buu yidhi ilaahay ba caadile carabsi 60 ba lagama helo buu ilaahay ba caadile carabsi 60 ba lagama helo wada Soomaaliland waxa yaala oo 60 ka ay xoolaha ku dhoofinayno waayahay mashaariic kala ma hayno iyagaana soo diro qurba joog waxaanu oran lahayn dadkeena qurba joog ah wada 60 kale wixii ku dari lahaa inoo fura haye oo toogu horeysa haday noqoto beeraha mashaariicda kalluumaysiga warshadaha waxa waaweyn dadka wax u taraya waxna u taraya inay inta iyagu iskaashadaan company furaan ay dadka u furaan waayahay su'aashana hadaynu soo noqono ee ahayd gaadiidka Yurub laga keenayo iyo kuwa waddankeena socda different badan baa u dhaxeeya waayahay gaadiidka Yurub laga keenayo waxa ay aad uga liitaan kuwa waddankeena haye dhinac way ka wanaagsan inuu North America kuwa laga keeno waqooyiga Mareykanka iyagu steerinkooga ayaa bidaxa oo waddankeena haadkeena waa midigooga ku wanaagsanaan lahaayeen kuwa nimka aynu wadano xagga nabadgelyada wadooyinka iyaga kaga wanaagsanaan lahaa waayahay laakiinse siyaabo kale oo xumaan ay leeyihiin qofka Yurub ka imanaya oo waliba Ingiriiska dadkeenu ka yimaadeen North America waxa uu roonay baabuurta halkan ka iibsadaan oo ay iska daayaan halka qodob baan isku dul taagto aqoontii waddanka taalay taasi ayayna horta hidaheegii iyo aanay halkaasi ka soo aroortay laakiin iminka waxa isku bedeshay aqoontii electronics iyo technology-da waayahay inkastoo dadkeenu dadaal badan yihiin oo waxyaalo badan ay sameeyaan iyo fikir badan si ay ku keenaan hita try and error-kii ay ku sameeyeen waxyaalo badan dee rag hiddo hore soo haystay ay keeneen haddana tiknoolajiyada iminka halka ugu dambaysa weli kamaynaan gaarin waddankeenu dugsiyo farsamo gacmeed ma laha oo inoo soo saara dad aqoontan dambe la jaanqaada waayahay weli teennii hore ayaynu wadanaa laakiin tiknoolajiyadii iyada waa lala keeni karaa waxyaalo badan إلى مشكلة سوي واحد شيء حضرت حتى قرطة إنه حماضي والألعاب سوى ده كله جه ليه مشكلة ده وجوه نتعلى تاسي ويا إنك تصير لليرتين إنك اعتدالية قضبك كلام كدر لا بحويا شيدالك يا لا يوروب يا أمريكا اسكت يا ما هي شيدالك ويا حكوا الدوين وحلو كل الدوين waxa lagu isticmaalaa numberra la isticmaalaa sitay number iyo ogtay number laba numberra la yiraahdo oo nafaqada ku jirta shidaalka iyo wixii cabiraya ayaa lagu isticmaalaya waayahay inuu kuweenu waa grade hoose oo tayadoodu way yar hooseysa tusaale ahaan weliba kuwa Soomaaliland iminka way iska rooyeen basharakadii reer Siiga ay keeni jireen way iska fiicnaa laakiin waxa jira awr badan oo Puntland in looga yimaado khaasatan kuwaasi marka Hargeysa yimaadaan buu xumaada haye shidaal foostooyin loogu keeno oo marka gaariga lagu shubo xabag ku noqonaya haye sida xanjada oo kala ayaa ku noqon halka injectorna waxa la siiyay $450 baa siiyay halka injector injectorkuna waxa weeye kii naftada ku shubay bistoonka halka injectorna $450 ku jiro 4 bistoon bil bistoon $2,000 baad markaaba khasaare ku gaaray haye marka baabuur ku socon karta waxa weeyaan kuweenaas inta badan imka aynu la baranay ee la qabsanay ayaa ku wanaagsan ku xagaasi waxay soo isticmaalaan shidaal tayadiisu heer sare tahay marka qura saa loogu shubo hashkad buu bilaabay uu istaagay haye waxa kale aynu ku dari lahay
noocyada baabuurta waxaa jira dee baabuur waxaad arkaysaa taxi yaroo foolfaal nin keenay oo magaalada gebigiisaba xabadaasoo keliya ay ka taallo dee magala phenomenonkaasi xay ka jirto inuu qofku isleeyahay hebel halagu yidhaha gaadhi nooc gooni ah ayuu wataa ayaan u malaynaya malaa fikir caynkaasa taasina dee xadaaradda kuma jirto waayahay waxa loo baahan yahay gaadiidka waddanka ku socda ee isbeer baarkiisana la helayo ee farsamadii ay taallo qalabkii yaallo waxaa kaloo isweydiin maanta mudan oo u baahan inaynu dadkeena dee qurba joogta inay ku xisaabtamaan transport baa jira gaariga Canada markab laga soo saaro waxa lagu yiri $2,000 buu ku imanayaa transportko kaliya ee cashuur laga qaadayo waayahay ee magaranaysaa أبو دحلا إسبير كيسين أنا هالكن كهلين وخسارة فوق الخسارة رجع حبهن أنت هسا حبيت يروح قاريوس كجوة أنت ودك تشوف كوف الله وياهي هل ينجنر إسماعيل ضدكم من رصاها الله غربتشوق وما إلى هذا وروح الربعين بيش اللي حالي يعني معديه وحن دونينا ويش كنا ما عقف كنا ما بابورا سوقاته بل يجوا رما نوع تلميني ويديا مسوي وين كر كنا ما ولا كنا ولي ما عرفتين ولي ما أنا وحدة اللي سوي دي وحدة قاري يرد دبي وكسر قاعدنا يوم ودت كده هالكن تجي يلا هالنوع مشيك النوع عسى ما كبينس كساري لا سوقتها مثل أي شيء كساري إنه زراعة قفا تذكر لو الوحيد بدين كوم على ددينا لكن دد كاسي كوسقوا تقوم بالغيا ما نور بيس كسرته وسياهو وياهي نمك تكرأ جرتا وحوي بابورتا جبال لقى كينا وضمد عربت لكينا وكو دوينكا شامبول لقوا ميرو la rinjiyeeye maaragtay wadooyinkii la rinjiyey nadaafadii laga shaqaynayo baabuurkaa loogu talagalay laami aan intaa in la eegoo dhagax yar lahayn oo la maydhaayo weliba halkan markuu yimaado miyuuna si kastaba aynu ula naqaano si kastaba qalab fiican ha u ahaadee waddadan rafka ee 14 hoga waddadii aynu sameynaba iliilad isku bedelayso sidoo markaa ula soconaya qaybtan la suspension systemku ee gaariga maqasidiisa iyo shakalada iyo kaabaanada iyo spring iyo kuwaas aan noocyadooda si kala duwan waxa jira baabuur uu kala kiciyaba tiyub oo noocan airportada basaska markaynu ka degno basas aad muddo marka saa u taabatay inay raaxadooda aad ula yaabayso de kuwaasoo kale de ninka halka ku kale waxba faa'iido dhaskaasaa ka gelaya markiiba tiyubka daloolinaya marka waxay ku xulan tahay suspension systemkaasi qaabkaa raaxada ee gaariga ku iska xijin kara rafkeena hadduu kaabaanadeena iyo isbirinadeena iyo oreer waxaa iska leeyahay uu iska wanaagsanyay laakiin nooca inta badan ama isbuuxiye isagoo iskiciya ama nooca rabarka tiyubka tiyubka naqaska lagu buuxinayo kuwaas aad ugu liitay inay soo qaataan aan ula ficilin inay waddanka soo qaataan waayahay waynaka nimanka urur samaystay ee geerashlayaashii farsamo yaqaankii inagu xidhan yihiin ma laga yaabaa ma qorshaysanaysaa inaad soo saartaan 6 biloodba buug yar oo aad ugu tala gashaan qurba jooga ama qolqol jooga aad leedihiin baabuurta sidaasa ayaad qalabkooda helaysaan shidaalkooduna maaragtay wadaya ood macluumaad dheeraada iniga yimaado ma ku tala jirtaan قصب بين قلمك هذا investment بدل أدتك بربوشون ودك إنه سوق اللي إنه قلنا وين المرجليت هاي نقول سمين ده وإحنا قصبها